Maryan Caabi Diiriye waa hooyo la dhibaataysan fiixa kaga yaala cunaha iyo qaarka dambe kuwaasoo halis geliyay nafteeda waxaana u dheer xanuunka duruufta adag ee nololeed waxa lagu leeyahay dhowr bilood kirada guriga ay ku jirto oo ka samaysan sandaqada iyo bulal mana jirin wax raashin oo yaalay gurigaasi waa xaalad murugo gelinaysa qof kasta oo booqdo hooyo Maryan xilliyada qaar waxa lagu sameeyay qalliin balse waxay sheegtay in dhakhaatiirta dalku cadeeyeen in xanuunkeedu gaadhay heer aan waxba laga qaban karin dalka gudihiisa isla markaana ay u baahan tahay dhakhtar dabadeed waxaanay fariin u dirtay bulshada Soomaalida meel kasto ay ku sugan yihiin iyadoo ka codsatay in islaamnimo ku caawiyaan oo ay badbaadiyaan nafteeda alla wax badbaadshe dhanka kale Sheekh Jaamac Wadaad oo nagu helinayay booqashada hooyo Maryan ayaa ugu baaqay ummadda islaamka inay si degdeg ah ugu soo gurmadaan hooyo Maryan Caabi aayadda 29aad ee suuratu al-Imraan ayaa Ilaahay ku yiri lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gaari maysan wanaaga ilaa bixisaan waxa jeceshihiin magacay waa Maryam Caabi Diiriye waxaan joogaa Burco xaafadda Hodan Qaylo fiixa igu yaala iga yaal macdanta iyo maxay tahay barida iyo cunaha macdanta dhowr jeer baa layga qalay dalka layga qalay marka ay imika waxaan waan ka baqaynaa qaliinkan dambe xaaladeeda iyo duruufahayguna way iska nimcaysan yihiin dhuxul yar baan imin jiray dhuxushiina waan ku daymoobay jiingada kiraa baan ku jiraa jiingadahana dhowr bilood baa laygu leeyahay odayguna uu naga xanuunsanaya macaan buu qabaa ragga dhis ka shaqeeyo imika meel ma kori karo uu iska joogaa walaalahayga islaamka waxaan ka codsanayaa qof xanuunsanaysan ahay insha Allah ilaahay baa wax qabta marka walaalahayga islaamka waxaan ka codsanayaa inay ay soo caawiyaan waxa ay kari karaan inay caawiyaan ayaan walaalahayga islaamka aan ka rajaynayaa insha Allah biidnillah walaalayaal maanta waxaan soo boqonay inantan oo waxa weeye xanuunsanaysa runtii duruufo badan waxa weeye ay ku xeeran yihiin waxa weeye haynteedii oo iska yaraatay waxa weeye ay gacan maran tahay waxa weeye ninkeedii oo isna xanuunsanayo oo jiifo waxa weeye aan shaqaynin xanuun waxa weeye muddo soo hayay oo waxa weeye jirkeeda meelo kala duwan ka haya oo fiixa ah qalliino badanna waxa weeye dalka gudihiisa ku gashay wixii dambana dhakhaatiirta ay ka baqeen oo ay yiraahdeen meelaha kale iyadoo lagu qalo mooyaan hadda halkan gudaha waxba laga qaban maayo bil Ramadaan oo waxa weeye lagu jiro oo waxa weeye ma aragtay iyagiina ay gacan marin aan waxba haynin qof kasta oo waxa weeye muslima oo waxa weeye muslimnimadu waxa weeye isu damqashay leedahay isu diirnax bay leedahay waxa weeye isgacan qabasho iyo isgarab istaag bay waxa weeye islaamnimadu ay leedahay hadii muslimnimo aad maqasho waxa weeye waa inaad qofka muslimka aad garab istaagto marka walaalayaal inanta waxa weeye anaga soo xaqiijinay xaaladeedu waa xaalad duruuf waxa weeye dhaba weeyaan magaalada Burco waxa weeye ay joogtaa waxa weeye dhakhtarna way u baahan tahay hadda minka jiingadahan yare waxa weeye ay ku jirtaa waa kiro weeyaan waxay sheegtay in dhowr bilood oo waxa weeye lagu leeyahay dhuxul bay iibin jirtay bariga hore sida inoo sheegtay taana waxa weeye deyn fara badan baa waxa weeye ka raacday oo imika waxa weeye loo haysto marka waxa weeye nabiguna kaleeyhi salaatu wassalaam waxa uu yiri qofka muslima qofka waxa weeye kurba ka fayda ilaahay subhanahu wa ta'ala sagana waxa weeye maalinka qiyaamaha ayaa dhibaatooyinka iyo kurbooyinka maalinka ugu adag baa ilaahay ka faydaya marka inanta muslimiinta ah waxaan walaalaha ka codsanaynaa muslimiinta ah inay ka soo farxiyaan oo duruufteeda dhaqaale iyo taxanuunkeedaba waxa weeye ay wax kala qabtaan walaaltinimo iyo islaamnimona waxa weeye loogu kaco oo waxa weeye lagu galo dadka waxa weeye walaalaheena Soomaaliyeed runtii waa dad aad iyo aad waxa weeye u qiimo badan oo waxa weeyaan ma aragtay isu diirnaxa wax weeyna waxa weeye istara waxa weeye weyn laga soo jawaaba